kulan ay xubnaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed maanta ku yeesheen xaruntooda magaalada Tan Muqdisho ayna shir gudoomisay gudoomiyaha ururkaasi Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa looga hadlay xaaladda dalku marayo iyo kaalinta haweenka Soomaaliyeed kaga aadan horumarinta dalka. xubno ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed oo halkaasi ka hadlay ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin rajo xumida ka dhalan karta aragti kala duwanaanshaha qaar ka mid ah madaxda dalka ayagoo dhinaca kalena dhiiri geliyay wada hadallada iyo in la ilaaliyo nidaamka dawladnimadeena ka fadhiga oo u tartama sida wadanku u dhisnaayeen ha u tartamina sida isu qabsanaayeen kii wax qaba yiraahdo qalbigiisa fiican yaa ku kala dabada ku dhig kii meel mas'uul laga dhigo oo yiraahdo meeshana mas'uul ka tahay hadduu dhaqdhaqaaq sameyn maago waxaa lagu dhigayaa lugta. marka waxaan ka codsanaynaa haddii aan haweenka Soomaaliyeed in aan wadankii dhistaan. dhibaato waa dhammaatay ninkii 4 sano idinku aad soo doorateen maantaan hidaynaa kuma jirna annagu waxaanu rabnaa horumar, waxaanu rabnaa guul, waxaanu rabnaa dawladoo shaqaysa, waxaanu rabnaa ninkii maanta 4 sano waxaya oo wax laga dhaxlo. gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Marwo Batuula Sheekh Axmed Gaballe oo halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay in haweenka ay xasuusan yihiin darxumadii iyo diiftii ka soo gaartay burburkii dalka ka dhacay, sidaas darteedna ay si weyn uga soo horjeedaan dib u dhac ku yimaada hanaanka dawladnimadeena. waxayna siyaasiyiinta ugu baaqday inay ilaaliyaan maslaxadda ummadda oo ah dawladnimadeena. dawladnimadu waa tiirka wadajirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed inaan xoojino oo dawladnimada taageerno oo jiritaankeeda taageerno. haweenka Soomaaliyeed waxay u tahay tallaabada koowaad. dhinaca kale waxaa waajib ku ah gabdhaha Soomaaliyeed oo isla go'aansadaan oo isku maaragtay afgarteen in loo saaro guddi arrimaha markay dhacaan oo kale dhexgeli kara oo haween ah oo waayo arag ah oo aqoon-yahan ah oo wadaniyiin ah oo og dhibaatadii Soomaaliya ay soo martay inaysan ku habboonayn inay soo noqnoqoto ama la isku cabsiyo. مولد محمد سفرية وارباهنت قرنكا مقدشو.